nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban sida aad la wada socotaanba dalka Jabuuti waxaa ku sugan madaxdii Soomaaliya oo dhan hadhihin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha hadda Soomaaliya xilka ka haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan siyaasiyiinta u dhashay dalkeena Soomaaliya Jabuuti waxaa ka socday shir ay maalgelisay macadka culumta ee Heritage kaasi oo looga hadlayay arrimaha amniga iyo waliba siyaasadda iyo in qowmiyadda Soomaaliyeed ay adduunka wax la qaybsato laakiin arrin cajiib ah ayaan idin hayaa madaxweynaha ruuxiga ah ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle gabar uu dhalay waxa guursan raba taliyihii hore ee hay'adda NISA hadda waa xildhibaan waxa lagu magacaabaa Saadiq John sidoo kale arooskaasi waxa uu noqon doonaa arooskii qarniga markii laga soo tago ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo wiilkiisa uu ku aroosayay dalka Kenya xilligaasi waxa tagay siyaasiyiin aad u fara badan dalka Kenya laakiin hadda arrinta mucjisada leh ayaa ah in arooskaas ay isku arki doonaan hana qoslilina laakiin hadda waxa cajiib ah in arooskaasi ay isku arki doonaan waad yaabanta waxaan soo wado waa madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba gabadha aad iyo aadka sanadihii dambe loo holin waayay ee lagu magacaabo Mrs Wall dhowr jeer oo Hargeysa ay tagtay waxa lagu gacan seeray in ay gudaha u gasho tarxiil iyo sidoo kale cagajugleen ayaa la iskugu daray laakiin hadda Mrs Wall waxa ay ka qayb galaysaa arooska in adeerkeed Saadiq John sida aan idin soo sheegayba gabar uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa guursan raba maalinka biri ah Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee NISA Galmudug sidoo kalena ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa hadda waxa la sheegayaa in uu la aqal gali doono gabar uu dhalay madaxweynaha Jabuuti arooskaas waxa ka qayb gali doona mas'uuliyiin aad iyo aad u tiro badan laakiin arrimo cajiib ah oo ka soo baxay ayaa sheegaya in xalfadaasi sidoo kale lagu casuumay dad baraha bulshada caanka ah sidoo kalena aan siyaasiyiin ahayn Muuse Biixi waxa la filayaa in arooska Saadiq John uu ka qayb galo laakiin haddii taas ay dhacdo waxa marada ka dhici doonta dhammaan shacabka reer Somaliland Mrs Wall ayaa arooska joogta sidoo kalena Muuse Biixi iyo waliba xukuumaddiisa waxa ay Mrs Wall u diideen in ay tagto caasimadda Somaliland Hargeysa haddaba waxaan arki doonaa bal Mrs Wall sida ay ula dhaqanto madaxweynaha maadaama ay ku jirto dadka caanka ah ee la casuumay fanaaniin iyo waliba waxa ka qayb gali doona wariyaal baraha bulshada magac iyo maamuus weyn ku leh arooskaasi sida aan irin sheegay waxa uu noqon doonaa arooskii qarnigan markii laga soo tago kii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wiilkiisa uu ku aroosay dalka Kenya arooskaas waxa iskugu yimid dhammaan siyaasiyiinta iyo waliba dadkii caanka ahaa laakiin kan hadda waxa uu noqon doonaa mid jibiya iskoorkaas Muuse Biixi dhowr jeer waxa uu isku dayay in uu Mrs Wall ka celiyo gudaha Somaliland inkastoo ay u suurto gashay laakiin berito ma ka hor istaagi doonaa xalfadda arooska ay ka dhacayso Mrs Wall iyaduna waxa la sheegayaa in ay ka mid tahay dadka la casuumay haddaba daawada adiga see kula tahay arrimahan mucjisada leh ee hadda soo baxay